السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي قالك أكو سلو هذا مركز علمي تيجي يوتيوب channel كاتك حسبت سبسكرايب له هدنا شوف تنسي جوك فيديو كنا قرا شيرنا ده كومنت تقولوا وا أركتي دينا صاحبي اسكت نقد ونسين صاحبتي قالك فيديو كنا ما أنت وحكوا سابسين هي وا آيفون هذا بس صاحبي قيبت أنا ما أنت فيديو كانوا حاضرين كله وذاك يا وا qaabka aad Apple ID-gaada numberka ku register ama numberka lagu sameeyay asiga bedel lahayd mar qaar waxa laga yaabaa in Apple ID-gaada oo qof kale ku sameeyay oo markaa sameyntiisa kaaga aqoon roonay hadaba waxa laga yaabaa isla markaa uu qofkaasi ku sameeyay in uu kugu register ama uu kugu furay number aad hore u isticmaali jirtay ka bacdina aad iska bedeshay ama uu numberkiisa kugu save gareeyay ama number qof kale oo markaas kugu register gareeyay haddii markaas Apple ID-gan oo ka dhumana haddii aadan haynin numberkii macnaha markaas oo ku register gareysnaa ama ku sameysnaa in aad soo ceshataa inay kugu adkaan doonto haddaba saaxiibayaal fiidiyogan gudihiisa waxaan kula wadaagayaa markaas qaabka aad ku ogaan lahayd numberka kugu register gareysan Apple ID-gaada isla markaana isaga bedel lahayd haddii aad doontid haddii aad wadatid mobile iPhone ah nala daawo fiidiyogan ilaa dhamaadka haddaba si aan ugu bilowno soo qaado mobilekaada marka koobaad waxaad tagaysaa settingka mobilekaada settingka markii aad tagtid waxaad ka sii tagaysaa meesha kore ee ay ku qoran tahay macnaha profilekaada sawirkaada magacaada ayaad ku dhufanaysaa marka ku dhufatid settingan kale ayaa kuu soo baxaya waxaad ka sii dooranaysaa password and security marka aad dooratidna qaabkan ayuu kugu soo baxaya hoos hadda u socotid waxaad arkaysaa numberka meesha uu ku qoran yahay numberkaas weeyaan numberka markii mobilekaada ama iCloud-kaada oo ka halaabo lagala soo xiriirayo oo code kugu soo dirayo oo data aad dib u soo ceshan kartid lacala haddii aad ilowdid password-kaada marka numberkaas ayaa la rabaa marka waayo numberkan u socono numberkaas weeyaan oo rabno inaan bedelno ama aan fiirino numberkii aan rabnay in uu yahay haddii uu yahay numberkan numberkaadii saxda ahay sidaas ayaa uga leexanaysaa laakiin haddii aadan rabin numberkan aad rabtid iska bedeshid waxa aad tabanaysaa qaybta kore edit ku qoran tahay numberka korkiisa ka bacdi waxa uu ku dhahayaa calaamad ayuu ku tusaya gaduudana balasa ka bacdina oo remove camal ah waad ku dhufanaysaa marka ku dhufatidna delete ayuu ku dhahayaa delete markii uu ku dhaho halkaas waxa oo macnaha uu ka codsanaya inaad gelisid numberka hadda aad isticmaashid ee aad u rabtid in uu ku ahaado numberka macnaha kugu register gareysan Apple ID-gaada marka number la'aan ma yeelayo waa inaad macnaha numberkan haddii aad ka bixisid aad number kale gelisid sida caadigaana number la'aan ma noqon kartid marka continue aad dhahaysaa passcode-kaada ayaa gelinaysaa markaas passcode-kayga ayaan geliyay ka bacdi wuu sii wareegayaa halka markii aan marayo waxa uu leeyahay number geli meeshan meel number ku qoran yahay oo tusaya ka bacdina waan tirtirayaa numberkan waxaan gelinayaa numberka saxda ah ee aan rabo numberka waxaad ka bilaabi kartaa sida caadiga ee markii oo international ma aha sida caadiga ayaad u gelin kartaa numberka markii aad gelisid qaybta meeshaas inay kuu select gareysnaato waaye text message iyo call ayaa ku kala qoran marka textiga kore ayaan saaranayaa markaas ka bacdina korka kore ayaan send ka dhahayaa ka bacdi code ayaa la isoo dirayaa codekaas markii la isoo diro markaas ayay ii hagaagaysaa hawsha codeka waa isoo diray automatically waa u galay haddaba numberkayga cusub waa kaasa numberkaas ayaa markaas ii galay oo haddii hadeertan aan ka baxo meeshan aan dib ugu soo laabto waxaan arkayaa markaas numberka inuusan ahayn numberkii hore numberkayga dambe oo saxda ah oo igu jiro haddaba saaxiibada qaaliga aan fiidiyogana maantana intaas ayuu ku saabsanaay aad iyo aad idinkugu mahadcelinayaa fiidiyogana xiga inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh